caabuqan sida guud wuxuu ku sameysmaa tubooyinka soo gudbiya shahwada marka ay ka soo baxaan dhanka iyo xiniyaha ama testiska. waxaana loo yaqaanaa caabuqan epididymitis. qofka marka ay marxaladan ay ku dhacdo ama infectionkan uu ku sameysmo waxaa lagu arkaa kaadidu inay gubayso, sidoo kale kaadidu ay aad u qabanayso mar walbo. waxaa kaloo usii dheer scrotal pain, in qooraha uu xanuunayo, sidoo kale mid ka mid ah labada xiniyood uu aad barar lagu arkayo, sidoo kale dikaan badan iyo in qofka qandha iyo xanuun badan uu mar walba uu sii sheegto. caabuqan epididymitis kuna sameysmaya habmareenka shahwada ee taranka ragga. haddii uusan qofka iska daaweynin waxaa lagu arkaa discharge, in marka uu kaadinayo ama xubinta taranka afkeeda ay kasoo muuqdaan dhacaan ama qoyaan, kaasoo midabkiisu u badan yahay cadaan jaale xigeen. saaxiibayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. inta aanan mawduuca epididymitis aana u gudagelin, marka hore waxaan idinka rabaa pagekayga YouTube-ka iyo Facebook-ga, like-ta, follow-ga iyo subscribe-ka inaan laga hilmaamin. sidoo kale wixii su-aal iyo aragti iyo talo waxaad iga soo weydiin kartaa adresskayga adigoo aad ka heli kartid YouTube description-ka iyo Facebook page-ka. aad iyo aad aan kaga mahad celinaa dhammaantiin. inta ugu badan epididymitis-ka waxaa lagu arkaa da'da 20 ilaa 40, taasoo ah dhalinyarada iyo da-dhexaadka ragga. arrintan epididymitis-ka ee ragga saameysa, gaar ahaan kasii saameysa tubooyinka soo gudbiya shahwada, kuwaasoo ku yaala qeybta dambe ee xiniyaha posterior side-ka. meeshaasoo ah marka ay xiniyaha ee shahwada ay kasoo baxaan ama ay soo diyaargareeyaan shahwada, halkaasoo loogu talagalay in storage ay ku noqdaan, ku nagaadaan, maturation ay ku qaataan ama ay ku qaangaaraan. intaas kadib marka ay maturation ay noqdaan waxay ugu sii gudbayaan qeybihii kale tubooyinkii, kuwaasoo loo yaqaano fast difference. epididymitis dabcan waa marxalad saameysa habmareenka taranka, laguna arka dhalinyarada marka ay ku daahdo inay ka saameysa guud ahaan xiniyaha. dhici karta in xiniyaha uusan soo saari karin marka dambe testosteronkii iyo xubnihiisa taranka awood badan inaysan yeelanin dhanka iyo fertilizationka, bacriminta shahwada, iyo in qofka uu madhalisinimo uu nugul lahaado marka dambe. sida guud marxaladan epididymitis, caabuqa ku dhaca tubooyinka shahwada soo gudbiya, waxa ugu horeeya ee sababi kara ama saameyn ku noqon karo waxaa ka mid ah bacteria ama infection, taasoo ay ugu horeysa E. coli bacteriada loo yaqaano, kana imaan karta qeybaha kaadi mareennada marka ay dhacdo wax loo yaqaano retrograde urine flow, in marinkii kaadida ay dib usoo laabtaan, kaadina ay dib ugu laabato kaadi mareennadii iyo kaadi heystii, taasoo saameyni karta tubooyinka ku hareereysan xiniyaha guud ahaan scrotal systemka. waxa kaloo epididymitis-ka keeni kara waxaa ka mid ah cudurada lagu kala qaado dhanka iyo sariirta ama galmada, gaar ahaan chlamydia, trichomitis, sidoo kale neisseria, gonorrhea, jabtada iyo qeybo badan oo infections ku dhici kara habmareenka taranka ragga. sidoo kale epididymitis-ka waxaa khataro badan ugu jira bladder outlet obstruction, in marinkii kaadi mareenka qeybo ka mid ah, gaar ahaan kaadi heysta, tubooyinkii gudbinaya qeyb ahaan inay xiran yihiin, sidoo kale qaab ahaan siday u sameyseen defect ama cilad inay ka jirto. waxaa suurtagal ah kaadida inay dib usoo laabato bladderka, bacteriana ay ku abuurto scrotarka, gaar ahaan qeybaha shahwooyinka ay maraan. sidoo kale epididymitis-ka waxaa khataro badan ugu jiro sexual activity, young sexual activity, dhalinyarada haddii jeer aada u badisa dhanka iyo galmada, waxay u nugul yihiin ama ku dhici kara wax loo yaqaano epididymitis, in uu infection uu kaga sameysmo dhammaan tubooyinkii soo gudbinaya shahwada, kana soo gudbinaya xiniyaha. sidoo kale epididymitis-ka ama caabuqan waxaa khataro ugu jiro qofka marka ay jug ay gaarto ama dhanka iyo xiniyaha inay jug ay ka gaarto, wuxuu u nugul yahay infectionkan.
sidoo kale epididymitiska waxaa kaloo khataro ugu jiro dadka gym builderska ama body builderska, gymka jirka lagu dhiso, almeentada badan oo biraha lagu qaado, waxay khataro ugu jiraan in laceration uu ku dhaco xuubka ku dahaaran epididymiska ama tubada shahwada soo gudbisa, taasoo pressure badan aan u adkeysan karin, meeshaasoo ah meel aad u khafiif badan. waxaana suurtagal ah in infection uu ka dhaco marka ay awood badan ay geliyaan jirkooda, gaar ahaan biraha la qaadayo. Epididymitiska marka uu qofka uu ku dhaco kana soo gudbo incubation period, infection iyo caabuqi markuu meesha ka dilaaco, qofka waxaa lagu arkaa calaamado kala duwan. gaar ahaan inta badan dhalinyarada waxay dareemaan kaadidu inay ololeyso ama aad ay u gubayso, sidoo kale mar walba in kaadi ay qabanayso, taasoo musqusha intuusan aadin ay ka fakan karto. waxa kaloo lagu arkaa dabcan epididymitiska calaamadaha soo muuqanayo scrotal pain, in xiniyaha ama qooraha meesha uu ku fadhiyo o dhan xanuun, dikaan, barar lagu arkayo. labada xiniyood mid ka mid ah in uu barar uu soo saa'idayo ama bararkiisa aad u badan yahay. qofka sidoo kale haddii uusan in muddo ah uusan iska daaweynin, waxaa kaloo lagu arkaa discharge, waxaa kaloo lagu arkaa dhacaan ka yimaada marka uu kaadinayo, ama si caadi ah markuu isaga fadhiyo qoyaan ama dhacaan cad, kaasoo ka tarjuman shahwadii meesha ku keed garaysneed in ay soo raacayso mar walba kaadida awood badan ee meesha ku jirta aysan lahayn. waxaana suurtagal ah meeshaas inuu infectionka uu saameeyey shahwadii ku qaangaari rabtay meesha, maturation and storage loogu sameynayo tubooyinka loo yaqaan epididymis. marka ay marxaladan dhalinyarada ay ku dhacdo, waxaa habboon in baaritaano ay sameeyaan si aysan u keenin marka dambe infertility ama in qofka ay ku keento madhaleysnimo. sida guud marka la rabo baaritaano in la sameeyo, waa in qofka kaadida laga qaadaa, urine culture loo sameeyaa, la ogaadaa microorganismka meesha inuu ku sameysmay in kale. sidoo kale cudurada galmada la isugu gudbiyo dhanka iyo sariirta in la baaraa ayadana, gaar ahaan gonorrheada, jabtada iyo cudurka loo yaqaano chlamydia. waxaa kaloo qofka loo sameyn karaa ultrasonography in la saaro computer si loo arko tubooyinkiisa in ay fiyow yihiin, caafimaad qabaan, waxyeelana aysan jirin. marka ay timaado daawooyinka, qofka waxaa habboon in uu qaato kuuradii loogu talagalay epididymitis, taasoo ka dhigan in qofka infectionka uu si nadiif ah ugu tirtirmi karo, kuna soo laaban karin marka daawooyinkii loogu talagalay uu si nadiif ah u qaato. waxaana ugu horeeya daawooyinka la isticmaalayo doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin iyo cefotaxime, ayadoo qofka uu qaadanayo dawl antibiotic, taasoo ka dhigan in bacteriyada si adaga uu ila dagaali karaan qalajiyaha qofka uu isticmaalayo. sidoo kale qofka waxaa loogu dari karaa antihistamines, maadaama meesha xanuun iyo dikaan iyo barar badan uu jiro, si xanuunkaas iyo dibkaankaas ugu yaraado, uu qofka uu la qaadan karo daawooyinka xanuun baabiyaasha iyo kuwa bararka dejiyo. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, halkan ayaan ku joojinaynaa mowduuca ama caabuqa ku sameysma habmareenka tubooyinka shahwada, kuwaasoo loo yaqaano epididymis. aad iyo aad aan kaga mahad celinaa dhageysiga iyo socodka video clipska aan soo geliyo. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.